madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa warqadaha danjiranimo waxa uu ka gudoomay Ben Fender oo ah danjiraha cusub ee dawladda Britain u soo magacaawday Soomaaliya kaasoo salaan uu ka siday boqoradda Ingiriiska soo gaarsiiyay madaxweyne Farmaajo. Ben Fender ayaa muujiyay sida ay dawladdiisa uga go'an tahay joogteynta taageerada ay siiso dawladda Soomaaliya ee ku aadan dhinacyada amniga, bini'aadanimada iyo dhaqaalaha. waxaana wasiiru dawlaha arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Khayr oo qayb ka ahaa munaasabadan uu madaxweynuhu warqadaha kaga gudoomay danjiraha cusub ee Britain uu sheegay in waxyaabo kale oo muhiim ah ay ka wada hadleen madaxweynaha iyo danjiraha cusub. waxay madaxweynaha iyo danjiraha aad uga wada hadleen xiriirka qotada dheer ee ka dhaxeeya labada dawladood, arrimaha ka jira hadda Geeska Afrika, horumarinta Soomaaliya iyo sidii loo dardargelin lahaa mashaariicdii iyo kaalmadii uu siin jiray dawladda Ingiriiska waddanka Soomaaliya. waxaa kale oo madaxweynaha iyo safiirka ay aad ugu nuuxnuuxsadeen sidii loo taabagelin lahaa iskaashiga dhinacyo kala duwan oo ganacsiga, waxbarashada iyo dhinac walba leh, iyo jaaliyadda Soomaaliyada badan ee ku nool waddanka Ingiriiska ee qaybta ay ka qaata mujtamaca waddanka Ingiriiska. dhinaca kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xafiiskiisa ku qaabilay ergeyga ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel u qaabilsan arrimaha Afrika Gunter Nog oo madaxweynuhu uu kala hadlay kaalinta Jarmalku uu ka qaadan karo dib u dhiska Soomaaliya iyo soo celinta mashaariicda Jarmalku ka fulin jiray Soomaaliya. waxaa kale madaxweynaha uu kala hadlay sidii Soomaaliya loo kaalmeyn lahaa iyo mashaariicdii hore ee Soomaaliya ay Jarmal ka bixin jireen Soomaaliya ku kaalmeyn jireen. madaxweynaha sidoo kale salaan ayuu ugu faray inuu ka gaarsiiyo madaxda dowladda Germany. sidoo kale wuxuu madaxweynaha ka hadlay taariikhdii iyo xiriirka labada wadan ee Soomaaliya iyo Germany, markii ahaan jirtay midda bariga iyo midda galbeedka. waxay kaloo madaxweynaha iyo ergeyga gaarka aad uga wada hadleen sidii loo taabagelin lahaa mashruucyada. Cali Baasha Cabdullaahi, warbaahinta qaranka, madaxtooyada Soomaaliya. wadayna subscribe saartid riix like sidoo kale riix gambaleelka digniinta si markaan muuqaal soo gelin aad u noqotid qofka ugu horeeya ee daawada. sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawada inaad sii sheergaraysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid sida Facebook, Twitter, WhatsApp, Google+ iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada.